السلام عليكم. sida aad ka warqabtaanba waxaa laba maalin ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho kulan u dhaxeeya ama dhex maray madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaha haatan talada haya. Waxaan jeclaystay inaan kulankaas kala soo dhex baxo cashar yar oo aan isleeyahay dadka qaar ayaa wax u qaadan kara. Isbuucyo ka hor markii ay cirka isku shareertay xiisada u dhaxaysa mucaaradka iyo xukuumaddu, dadka qaar ayaa u fahmay inay tahay colaad ama dagaal u dhaxeeya qabiil la yiraahdo Hawiye iyo qabiil la yiraahdo Daarood. dadka qaar ayaa u fahmay inay tahay daadaansi ka dhan ah qabiil loo yaqaano Mareexaan. qaar ayaa u fasirtay inay tahay dulmi ka dhan ah qabiil loo yaqaano Abgaal. dadka qaar ayaa ku sigtay inay qoryaha qaataan. qaar kale ayaa dareemay cuqdad fara badan iyo ciil aan la soo koobi karin. dabcan mas-uuliyiintii sidii ay maalin dhoweedba u kala boodeen ayay intay hoos iska wacdeen ay haddana shireen. berrina haddii ay doonaan dabcan way sii kala tegayaan. su-aasha marka adiga kuu taala waxay tahay, daraad markii la iskhilaafayay ama la iska hor imaanayay yaa adiga kula tashaday? haatan markii la isu tegayay yaa adiga kaa talageliyey? ma waxay kula tahay markii hore in loo kala xanaaqay adiga dantaada, haddase in la isugu yimid ama la isugu tegay adiga dantaada? yaa ku yaqaana? siyaasiga dantiisu waa kursi iyo awood. waxaa mar walba ku qabiil ah ciddii kursigaa ku hayn karta ama ku caawin karta sida uu kursigaa ku heli lahaa iyo awooddaas. siyaasigu marka uu xanaaqo indhaha ayuu shidanayaa. inta badan siyaasiyiinta Soomaalidu mataqaana cid ay ku tashan yihiin marka ay xanaaqaan. ilmahooda kuma tashana, walaalahood kuma tashana, ehelkooda kuma tashana, ilmo adeertood kuma tashana. dadka ayaga ah dhib looma quuro. dhimasho, rafaad, qax, waxaasoo dhan looma quuro. bal waxay u badan tahay markii dhibaato dhacdo in ayaga dibadda la geeyo si aysan rafaadba u arkin. waxa lagu tashan yahay waa adiga iyo carruurtaada, waa adiga iyo ehelkaaga, waa adiga iyo walaalaha. adigina ma awoodid inaad fakarto oo aad su-aal is weydiiso, ee markii gacanta lagugu yeeraba waxaad soo dafaysaa qorogaaga, markaasaad ka daba rucleynaysaa siyaasiga. dadka Soomaaliyeed inta badan waxaan nahay dad aan taariikhda waxba ka baran. jabhadihii sideetamaadkii dhammaantood waxaa horboodayay rag ayagu damac siyaasadeed leh oo damacoodii siyaasadeed ka dhigaya dantii qabiilka. qabiiladii marka maadaama aan wacyi jirin, qabiil walba markay arkeen ninkii ayaga ka tirsanaa ama ninkay aaminsanaayeen oo ayaga ku qabiil yahay oo dagaal ku baaqaya ama qora wata, way ka soo wada daba rucleeyeen. waxayna dhaxashiisay qaranjab, waxayna dhaxashiisay inay boqolaal kun qubuuraha naga galaan, waxayna dhaxashiisay inaan kala haadno. 2005 magaalada Muqdisho rag ayaa isku arkay oo soo dhejiyey filin ah in Ilaahay loo gurmanayo ama diinta loo gargaarayo. dadkaas intooda badan ujeedkoodu wuxuu ahaa awood. in badan oo dadkii kamid a maanta waxay ku qoracdaan beer iyo casiir, laakiin kumanaan kun ayaa qubuuraha u galay oo hadalkoodii rumaystay. maanta magaalo kasta oo Soomaaliya ku taala haddii ay isku qabsadaan laba siyaasi, waxaa la soo dhejinayaa reer hebel la neceb yahay ama reer hebel laga soo horjeedaa. dadkina way iska rumaysanayaan, waayo insaanku haddii uusan fakerin waxba ma dhaamo qof waalan. qofka waalanna siduu naftiisa khatarta ugu yahay ayuu dadka kalena khatar ugu yahay. marka waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed inay wacyi yeeshaan, in la fakero, in la iska daayo in laga daba rucleeyo siyaasiga. haddii aan marka caqli yeelano oo aan fakerno oo aan su-aal is weydiino, waxaanu soo heraya siyaasiga nagula joogi kara kartidiisa, aqoontiisa, ilbaxnimadiisa iyo waxqabadkiisa. waxaa meesha ka baxaya nin wax matara ah ama doqon ay ka daba dudayaan intaasoo kun oo qoryo wadata. laba waxyaabood oo isku xiran haddii ay Soomaalidu fahmaan, wax badan ayaa naga xalismay. waa siyaasiga qabiilka ku shaqaysta iyo qabiilka siyaasiga u shaqeeya. labadaas waxyaabood haddii aan fahmno, wax badan ayaa naga degaya. bani aadamkuna inuu si sharaf leh oo sax ah u noolaado waxay uga xiran tahay inuu fakero, waayo waxaa aad u adag in dusha laga rarto ama lagu danaysto qof fikiraya. waxaa noo ballan ah fikir. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.